marka dhimato waxa la wariyaa inay ruuxdaadu baaqi ku sii ahaan doonto hareerahaaga yacni marka lagu kanfayo iyo marka lagu meedhayaba naftu ka tagi mayso ee waxay ag joogi doontaa sida barkintaada hoosteeda faraashka lagu meedhaya agtiisa amba sariirta aad saaran tahay agteeda markii lagu qaado ee qabriga lagu geeyo naftu markiiba way kugu soo noqon doontaa oo waxaad maqli doontaa jabaqda iyo sanqadha kuwa ku doogay ee ku aasay waxaad noqonaysaa sidii qof hurdo ka soo kacay camal kadib waxaad isku dayi doontaa adoo qabriga ku dhex jira inaad ugu yaraan soo fadhiisato 3 goor ayaad isku dayi doontaa balse ma awoodi doontid inaad soo kacdo oo aad fadhiisato qabriga madowgiisa markaad aragtid waxaad dareemi doontaa inaad dhimatay oo noloshii adduunyo aad ka imaaday quusan maysid haddana waxaad isku dayi doontaa inaad dib u soo kacdo qabriga dushiisana madaxa ayaad ku dhufan doontaa isla marhaantana waad diiran doontaa ciidda qabriga ee ka sarreysa oo qacmaha ayaad sidaa ku dhihi doontaa ugu dambeyn waad yaqiinsanaysaa waana jiifaysaa waxa ku iman doona 2 malag oo loo yaqaano munkar iyo nakiir kuwaas oo ku weydiin doona 3 su'aalood ma ku weydiin doonaan baasaboorkaaga magacaaga dhalashadaada balse waxay wax ka weydiin doonaan rabbiga rasuulka iyo diintaada haddii aad ka jawaabto waxaad ka mid noqon doontaa kuwa liibaanay haddii aad ka jawaabi weydana waxaad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray kadib 2 su'aalood marka lagu weydiiyo waxa lagu wadi doonaa meel loo yaqaano xayaatul barzakh meeshaasi waxay leedahay 2 albaab 2 albaab mid xagga jannada ayuu ku jeedaa oo janno iyo naciim ayaad heli doontaa halka kan kale uu ku jeedaa xagga naarta halkaana waxaad ku sugnaan doontaa ilaa iyo maalinka qiyaame ogsoonowna meeshaasi waa meesha kaliya aad ku ogaan doonto inaad tahay ahlun naar amba ahlul janna ilaahay waxaan weydiisanaynaa jannadiisa marka kadib waxa ku soo booqan doona qaar kamida qaraabadaada waxa la sheegaa inuu markuu mid kamida qaraabadaadu ku soo booqdo sida hooyada waalidka xaaskaaga walaasha ay qabriga kugu soo dul booqdaan inuu malag ku imaan doono isla marhaantana uu ku sheegi doono inuu ku soo booqday qof kamida ehelkaaga waxa la dhahaa ruuxdaada ayaa ka soo baxaysa jasadkaaga qabriga dushiisa ayaanay imanaysaa waxaana ay dhageysanaysaa qofka ku soo booqday erayada iyo dhawaaqa uu ku hadlaayo marmar ayaad waxaad heli doontaa abaalmarintaas ayaad weydiin doontaa xagga laga keenay waxaana lagu dhihi doonaa waa mid kamida ehelkaagii oo ku soo duceeyay sida inuu wiilkaagii uu ku soo duceeyay oo kale jazaaga iyo abaalmarinta qabriga ayaa lagu ku dhaxsiin doonaa haddaba waxaynu waxaas oo dhan u soo sheegaynaa waxay tahay inaynu ogsoonaano inay inoo dambayso nolol kale noloshaas oo aynu maanta u sii shaqaysan doono ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qabrigeena inooga dhigo rawdatan min riyaadil janna beeraha jannada kamida ee aanu inooga dhigin godgodadka naarta kamida muuqaalkan walaal ugu yaraan hal qof si sheer garee si dad badan ay uga faa'iideystaan oo ogaadaan xaqiiqada adduunka iyo xaqiiqada qabri